Wasaaradda Amniga Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta daahfurtay application-ka lagu magacaabo Badbaado 449 ama Bowda Community oo loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed taleefanadooda ay ku degsadaan kadibna ay ka raadsadaan talooyinka iyo gurmadka caafimaad oo ay u baahan yihiin. Agaasimaha siyaasadda iyo sharciyada ee Wasaaradda Amniga Cabdullaahi Faarax ayaa sheegay in habkan application-ka cusubi oo qayb weyn ka qaadanayo isku xirka bulshada iyo xarumaha caafimaadka ee ku howlan la tacaalidda xanuunka COVID-19. Wasaaradda Amniga Gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay daahfuraysaa barnaamij cusub oo ah application sahlaya ama qayb ka qaadanaya in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si fudud ula xiriiri karaan dhaqaatiirta si ay u helaan talo caafimaad. barnaamijka cusub maanta aan daahfurayno wuxuu qayb ka qaadanayaa sahlidda shacabka Soomaaliyeed nabadda ay joogaan in ay si fudud u soo download-gareystaan application-kan isla markaana ay u raacaan steebyada la sheegi doono kadibna waxa u fudaan doona inay ogaadaan xaaladooda caafimaad haddii ay dareemaan qandho haddii ay u jiro qufac haddii uu jiro astaamo kale ay ka cabanayaan inay heli doonaan talo caafimaad oo waxaa diyaarsan dhaqaatiir isla markiiba siinaysa talo caafimaad qofka muwaadinka ah. Dr. Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala xarunta isku xirka COVID-19 ee 449 ayaa sidoo kale sheegay in habka Badbaado 449 uu bulshada u fududeynayo in taleefanadooda ay si degdeg ah uga helaan fariimaha caafimaadka oo u baahan yihiin. bukaanka xogtiisa waxaa noo kala baxay markaas inay noo noqoto saddex qaybood. bukaan xaaladiisa iskala dhaxad tahay, bukaan xaaladiisa normal tahay u baahan in guriga lagula tacaalo, iyo bukaan u baahan emergency in loo diro gargaar loo fidiyo. kadib marka xaaladda qiimeeno isla markii bukaanka waxaa sii doonaa jawaab ku habboon oo anigu haddana isticmaalayna through haddana technology. kadib waxaa dhihi doonaa bukaanka warbixintaada waa helnay, arrintaasana kuu qabanay. for example kale bukaanka xaaladiisa wax iska yaraayeen waxaa dhahanaa cabsi ma jirto, dhegeyso idaacadaha iyo awareness-ka wasaaradda caafimaadka bixinayaan, xaaladaas sidaas ula soco, taxadar guriga ka bixin. bukaankaas dhahan waa la hayaa tookadan wuxuu u baahnaa in loo sameeyo gargaar degdeg ah oo xaaladiisa si hore ka soo rantaas. waxaa dhihi doonaa walaal waxaa jirada waa xanuunsan tahay, kadib xaaladaada mar walba mar ka dambeeyo waa la soco doonaa ilaa oo kaa ogaano in xaaladaada soo horeysay in kale. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta in sida ugu habboon ay ku xakameynayso cudurka halista badan ee COVID-19 si looga nabad galo saameynta uu ku yeelanayo nolosha bulshada Soomaaliyeed. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.